haddii hub inta lagu soo qaato gurigaaga la soo weeraro wad isdifaaci kartaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan maanta halkan kaga hadlaynaa hal kooban oo waano ah oo ku socda dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed iyo gaar ahaan gabadha uu dhibka ku dhacay. waxaa maalmahan dambe baraha bulshada wareegaya in Safiya Tusmo laga baahiyay sawirro ay habboonayn in ay public noqdaan, iyadoo la sheegayo in Snapchat-keedii laga jabsaday kadibna lagala baxay sawirro aan habboonayn. mana dhahayna in kanaalkeena waanadu uu sidan isku bedelay, laakiin wax yar sug, waxaan gadaal ka marin doonaa mowduuca aan ka leenahay inaan ka hadalno arrinta Safiya Tusmo. aniga malihi inaan idiin sheego arrinta ka dambeysa iyo qofka dhibkan geystay iyo waxyaabaha la midka ah. sababtaan kaga hadlayna way soo socotaa, ha degdegin. maanta waqtigan la joogo dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed waxay haystaan mobile, waxayna iska duubaan badankood muuqaalaha dhow ay ka shalaynayaan, laakiin maanta ay ku kaydsanayaan mobilekooda. iyo wiilasha waa la mid, laakiin badanaa dhaqankeena Soomaalida iyo kuwa Carabta haddii ay cayb timaado waxaa u daran gabdhaha. haddii ay wiil wax ku dhacaan bari wuu ka soconaya, laakiin haddii ay gabar wax ku dhacaan waxaa laga yaabaa inay iskula kacdo ficil aan wanaagsanayn. haddii aan usoo laabano arrinta ku dhacday Safiya Tusmo, waxay tusaale u tahay ama ay waana qaadasho u tahay dhammaan gabdhaha maanta iska duubaya waxyaabaha aan habboonayn, hadhowna ay ka oyn doonaan haddii lacala ay sidan ku dhacdo. أنا aaminsanahay inaan 1 year ka soo maqnaa aan ka soo tagay أنا waliba uga soo tagay wrong reason aan uga soo tagay baan halkan ka dhunkanayaa wada. haddii hub inta lagu soo qaato gurigaaga la soo weeraro wad isdifaaci kartaa. maanta ma rabo inaan taabto exactly the point, ma rabo inaan taabto. waxaan soo gaarnay ugu dambeyn gabagabadii barnaamijkeena. waxaan halkan waana u dirayaa gabdhaheena Soomaaliyeed dhammaantood. waxaan leeyahay ha iska duubin wax aad hadhow ka shalaynayso, ama ha iska qaadin haddii ay noqoto sawir iyo muuqaal. haddii aad samayso arrinkaas waad samaysay, haddana ha ku kaydsan mobilkaada, ha aaminin mobilkaada. beri waxa kugu dhici karta arrinta maanta ku dhacday walaashaada. waatan muhiimadda aan ka leeyahay muuqaalka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.